kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan daawadayaasha ixtiraamka iyo qiimaha inaga mudan oo caalamka meel walba oo aad ka joogtaan xilli walba oo idiin tahayba waqtiga ha idiin wacnaado waayahana idiin samaado walaalkiin Cabdiwahaab oo idin le maalin kale muuqaal hor leh aad baad ugu mahadsantiin sida qiimaha weyn aad inoo garab taagantiin ama aad inooga dhinac muuqataan had iyo jeerna aad noogu muujisaan kalsoonida weyn oo aad inoo haysaan waan idinkaga mahadcelinayaa waxaana idin leeyahay sharaf iyo cizi iyo karaamo ku noolow fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay laakiin oo ay tahay markii kugu horeysay aad nala kulanto ama aad na soo marto subscribe saar kambaleelkana furo si aad mar walba u noqoto ka sheekeeyaha aan looga sheekeenin si aad mar walba u noqoto dhiirigeliyaha channelka si aad mar walba u noqoto qofka kaliya ee maalinta abaalka weyn ee jirto aan abaal weyn uga hayn doono videoga like gareeya sina share gareeya asxaab badan la wadaaga si aynu u gaarno yoolka iyo hadafka uu channelka uu leeyahay aad baad ugu mahadsantihiin maanta ayaan mar labaad doonayaa social media waxyaabaha ugu qadarsan iyo waxyaabaha aan ka helay ama aan jecelahay inaan idin la wadaago in aan idin soo bandhigo bal aan marka ugu horeyso soo qabto Sharma Boy iyo gabadheena Malyumaanka isku soo noqoshadooda waynu wada haynaa ka maahan war la qabo xiisa malahan laakiin arrin ka duwan ayaa meesha yaalo heesta Malyumaanka ee fartan doonaan qoraa maxay macno ahay ee markaasi ay ka fadhiday Sharma Boy sidoo u heystay miya masasi ka duwan ayay noqotay xaqaa'iqda waxa jirto heesaha qaar ficilka iyo heesta ayaa isqabtaan waxa ayna sabab u noqotaa inta badan in ay dadka ku kala shakiyaan waxaan doonayaa horta sida uu aaminsanaa iyo sida ay iyada u wadayba in aan afkooda ka soo xaqiijino Sharma waxa uu maanta si toos ah waqti ula qaadanaya ama uu u weerari doona ama isku geli doonaan xaajidiisa Malyumaanka marka waxaan doonayaa waxyaabaha dhaxmari doona in aan marqaati ka wada noqono ee bal marka ugu horeysa muuqaalka waa kanay daawasho wacan fikrada wayla malaho waxaan doonaa farxada aniga sameeya deetiga inaba umadaba fadhiyo deetiga may ya bamaje may ina kuma talamo caawana maxaa ku dhaa macna asma is xasuusinay waxas gabdhaha ugu baaricifteynay adiga ma ay wax ina adiga ku wada umaleynaysid may niya maxaa ka sii gacsabti soo qora islaama nimankina isku dirin in leeyahay hadda والله هذيك قلت لها ده قديم أنا waxaas bala xofta la iga sida aad soo wada daawateen waxa uu leeyahay heesta marka uu qaaday way fahmaysaa dadkan way isfahmayaan fanaaniinta hadii ay yihiin dadka iyo hadii ay yihiin qolooyinka kale adigu cid walba cideeda way fahmaysaa ula jeedka bal macna cid walba cideeda kale way fahmaysaa waxa jirta laakiin aragtiyo qaar ay dadka isaga qaataan laakiin macnaha meesha yaalo uu ka duwanaan karo marmarka qaar tusaale markii aan ku siiyo heestan hadda fartan doonaa qoraa iyada waxay u sheegtay in ay sababta ay u qaaday heesta ama heesta sababta ka dambeysay in ay ahayd iska baashaan oo markaasi aysan jirin ula jeedo ay markaasi ay u soo qaaday ama in ay isaga ku socotay oo leedahay farxadaba anaga sameeyay hadii aad u haysato in aad adigu kaliya aad dadka ka farxinayso ama ay farxadeeda maantaba ay adiga kugu xirantahay Sharmow anigu farxadaba aniga sameeyo sida uu u arkay sida ayay ahayd laakiin iyada waxa ay tiri sida aan ula jeedo sida ma yahayne buufin kaleeta ayaan ku jiray oo dadka ayaan markaasi u dhinac qaatay heesaha Soomaalida ayaa inta badan waxa ay ka sameeysan yihiin ama ay yihiinba kuwa markaasi abaara ama meesha loola jeedo oo yoolka uu yahay laga bedelo Soomaalideena waxaan nahay dad iska yara qalqaali ah macnaha meesha aan anaga rabno ayaan ugu qaadanaa iyo sida aan anaga rabno sida aad maalmo badan iyo sanado badan ba aad ku arki karaysaan social media heesa caadi ah oo ninka fanaanka ah oo qaadayo oo nooc ula jeedo ayaa waxa arkaysaa iyadoo baabuur dagaal la dul saaray marka sida doonna ayaan u qaadanaa marka doonnana qof hinaasan ayaa dul saarnaa marka doonnana laba qof is haysto is caynaya ayaa dul dhignaa marmarka qaar marka walbaba sida aan doona ayaan u dhignaa laakiin macnaadka guud heesaha waa ay ka duwan yihiin haddaba taasi waa taa oo waxay markiiba ka shaafisay ama ay si cad ugu sheegtay in aysan ula jeedin laakiin si magaalnimo leh ayuu waxa uu tusiyay heestani sida uu isaga markaas aragti ahaan uu u arko iyada laakiin waa ay ka shaafisay haddaba familkani way isku soo laabteen waxa ayna ku jiraan waqti aad u qurux badan waqtigooda fiyoora ayaa ka maqan fiyoora yar ayaa ka maqan oo iyagana ay tabayaan anagana aan tabayna fiyooraha yar ilaahay horta ha u nabad keeno oo isaga oo nabad qabo ha keeno
balse dadka qaar ayaa waxa ay su'aal ka weydiinayaan oo aan arkay iyagoo malyuumaanka ku leh ilmahaagii yaraa miyuu hurdaa sidaynu wada ognahay inta ugu badan social media dadka isticmaalo waa ay ogyihiin in milyuun ilmaheeda yar ay kasoo tagtay Nairobina uu joogo iyada wadada ay soo martayna aysan waqtiga u saamixi waayay in ay soo galiso in ay soo wado ama inuu soo raaco oo ay wada tagaan waa ay waqtiga u saamixi waayay sababtoo ilmaha waa uu yar yahay qofna riski ma gelin karo naftiisa mooyaane naf kaleeto oo ciyaal uu dhalay way jirtaa dad yooga qaar oo markaasi dhiiranaan aad ah muujiyo laakiin looma baahna haddii aad dhibtoonaysid adiga iska dhibto laakiin ugu dambeyntii dheefta aad heshid waa in ay awlaadaadi iyo dadka adiga ku dhow kula dhadhamiyaan maadaama aad dibka kali ku ahayd hadhihin dibkana iyaga ha ku jiraan sababtoo aanaa soo dhibtooday hadhihin taasi qurux ma ahan haddii aad adigu dhibtootay dheefta ha lagula cuno dhibka in la wada qaybsadaa waa ay yacni waa wax naadir ah amaba haddii ay tahay wadooyinka safarka oo kale in ciyaal yar loo kaxeeyo ma ahan arrin suurtagal ah okay taasi waa taas dadka intooda kale way iska aaminsan yihiin balse familkani waxa ay noqdeen familada loogu dayashada badan yahay social media sababtoo ay u noqdeen waxa ay tahay labadooda midka kale ma uu caayin mana uu dhaliilin mana uu ku sheegin waxyaabaha qaar ama meelaha uu ku liito sidaynu marqaati ka wada nahay familkan waxyaabaha wanaag isku soo celiya ayaa waxa ay tahay haddii aad wanaag muujisaa wanaagaaga ayaad helaysaa haddaad xumaan la timaadana xumaan ayaad helaysaa dhowr jeer waxaynu aragnay iyaga oo meelo badan yacni lagu weydiinayo su'aalo iyaga isku saabsan qof walba markii la weydiiyo oo la yiraahdo qofkani adiga kula noolaa ama sharmaaka ha noqdo ama malyuumaanka ha noqdo sheek hal negative ay leedahay waxay leedahay intee fikiraan leeyihiin waa raadinayna laakiin haddii la yiraahdo wanaag sheeg waxa laga yaabaa saddex wanaag ka sheeg marka la yiraahdo in uu qofkaasi markaasi ka sheego 100 wanaag kale oo qofka uu leeyahay waana arrimaha inta ugu badan aan maanta nafteena ka laanahay si aan wanaag ugu noolaano waa in aan anaga wanaag isku tilmaamnaa haddii aan wanaag isku tilmaamno waxaynu ku noolaanaynaa nolol wanaagsan familkan ku dayasho ayay mudan yihiin waa fanaaniin dadka qaar maanta waxay soo weydiinayaan waa fanaaniin way sidaas ugu xayeysiinaysaa horta Sharma Fank waa uu ka baxay sida uu inoo sheegay malyuumaankana sida ugu dhow ayay kaga baxaysaa waadna maqli doontaan laakiin waxaan doonayaa fanaannimada marka laga soo tago insaaniyadda iyo qofka camalka uu ku jiro laba ayay kala yihiin qofka wixii wanaagsan waa lagaga dayanayaa wixii xunna waa la iska daynayaa anigu kuma lihi haddii aad adigu aadan doonayn fanka ku biir kuma lihi laakiin waxaan ku leeyahay wanaaga kaga dayda oo haddii aad xitaa isqabataan ama ay dhacdo oo waqtiga idi kala irdheeyo qofkaaga waxaad ula dhaqantaa sida ay labadaani qof ay isula dhaqmeen tusaale wanaagsan ka dhigta ma ahan haraaca laakiin tusaale wanaagsan xagga dhaqanka iyo dabciga ka dhigto waa ay mudan yihiin in laga dhigto aniguna waan aaminsanahay inay mudan yihiin in laga dhigto marka sidaas darteed waxaan leeyahay lamaanaha sanadka ayaa tihiin isha bini'aadamka Allah idinka qabto noolaada weliba nolosha ugu qiimaha badan farxadiinana sida aad u rajaynaysaan ilaahay inuu idin siiyo ayaan rajaynayaa dhammaan inta rajaynayso inay noloshooda qurux badnaataan waxaan leeyahay nolosha Allah idin qurxiyo waad mahadsantihiin fiidiyoga like gareeysiina share gareeyo waajibka ka guta inta aan muuqaalkan mid xiga ku kulmi doonana dhamaantiin waxaan idinkaga sii tagayaa nabaadiin